waa mahadsantahay walaalkay qaali ah Balgorey iyo ma aragtay Radio Horn Africa codka shacabka in badan baan ma aragtay niyada ku haystay inaan studio-han imaado maantana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan fursad u helay inaan soo booqdo studio-ha Radio Horn Africa aad iyo aad baan ma aragtay kugu mahadcelinaya juhdiga badan ee gelisay raadiyahan ma aragtay dadweynaha ugu adeegayso dad ma santahay mudane waan soo dhaweynaa aad baan kaga mahadcelinayna sida quruxda badan wanaagsan iyo waliba waqtiga qaaliga nagala soo qayb qaadatay barnaamijka maanta sidaan ognahay waxaa timaadeen xaflad ka dhaceysay xarunta macadka farsamada gacanta ee yeeb laantiisa Dadaab dhowr arday ayaa halka ka qalin jebinaysay maanta waad ka soo qayb gasheen waxaad matalayseen ismaamulka Gaarisa dawladda county-ga aad ka socotay adiga iyo xilwaano kale studio-da ugu soo booqatay balka waran أهمية إنتاج لك بأرضية أولى حفلة ما أنت عكسوا غير الشام يوم حي إهاد هذه بلدتك أبو وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحيد دورت معين آديات قيمة أولى ماشي لهذا وحوي أنا مال ولغو تبى برودتك ما أردت فرصنا ذا قعنتا واحد إنجليز كوي قانا تيفيتك Technical and Vocational Training Institute أيلي هذا وحاك قلن جبيان لبا بقول كنتوني أفر ما أردت قف بما أنت كقلن جبيان واسكوجو جيران هوين iyo ma aragtay rag iyo dumar ba iskugu jiraan dad ICT bay barteen dad waxay barteen ma aragtay farsamada sida wax loo repair gareeyo gabdhaha waxa la baray sida dharka loo tolo waxa kale oo la baray ma aragtay arinta qurxinta ku saabsan waxa la yiraahdaa salon business oo kaleeto marka dadkaas ayaa maanta qalin jebinayeen oo meeshaas loo guddoonsiiyay certificate muhiimadda ay leedahay waxa weeyaan inay arimaha gacmaha ma aragtay farsamada gacmaha inay aad iyo aad ay muhiim u tahay arin yar oo ma aragtay dhaqankeena ku saabsan Soomaali hadaan nahayna inay meesha laga bixiyo ay aad iyo aad ugu fiican tahay sad ogsoon tahay dadkeena farsamada gacmaha gacanta ma aragtay aad iyo aad hami uma siiyaan ma haba ahaatee looma maleeyo inay tahay shaqo fiican oo shaqo wanaagsan inay tahay looma maleeyo sad ogsoon tahay nin alla ninkii farsamo gacan sameeynayo waa la yeesaa dadkeena hata magac bay ugu yeerano tumaal baa tahay iyo ma aragtay beeraha uu ka shaqeeya iyo wax noocaas oo kale taa marka hamiga ugu weyn ee lahayn waxa weeyaan dadka aan ma aragtay niyadda u dhisnoon ahno waa inaad ma aragtay farsamada gacmaha la barto laga faa'iideysto horta waxaan ku faraxsanahay dad badan oo ka imaaday wardkayga inay ka qayb qaateen aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adaha ma aragtay arrintan ay tahay suurtageliyeen ee ugu horeyso European Unionka ma aragtay Roads International ayadana ma aragtay raacsan tahay DRC Danish Refugee Council ayadana raacsan tahay iyo hay'adaha kaleeto sida hadda RRDO kulli ma aragtay ka qayb qaateen oo arrinta ayada u suurtageliyeen ayaan ma aragtay aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dad badan oo ka imaada wardkaygana shaqooyin badan bay ma aragtay meesha ku barteen waana ku booriyay inay hor u socdaan county-ga dadka kama wada shaqeyn karo shaqada farsamada gacanta waa waxyaalaha fudud ee qofka ma aragtay noloshiisa nolol maalmeedku ku soo saari kara weeyaan marka dadka aad baan ugu boorinay inay ma aragtay ka qayb qaataan farsamada barashadeeda iyo ku shaqaysigeeda county ahaan maxaa ugu qorshaysan ayada xagga dhalinyarada in dadkan farsamada gacanta laga caawiyo wax laga baro sad ogsoon tahay waxaa la yiraahdaa TVET waxay dhahaan village polytechnics waxay hoos imaataa dawladda county-ga tan hadda waxaa gacanta ku haysaa national government-ka laakiin village polytechnic sida Gaarisa oo kale Gaarisa village polytechnic oo kaleeto waxaan macallimiin baan leenahay meela wax lagu bartaa jiraan farsamadii qalabkii baa yaala qofka door romaanti inuu barto sida maartay guriyaha loo dhiso wixii caawin lahaa ayuu meesha ayada ka heli karaa marka county-ga ayadoo isticmaalayso hay'adeeda ma aragtay department-ka education-ka tacliinta qayb weyn bay ka qaadataa oo dadka ma aragtay wax lagu baro way aad baad mahadsan tahay mudan waan kaaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga maanta nagu soo boqotay studio-ha waynu ogeyn xafladan muhiimadeeda iyo ahmiyaddeeda iyo waxtarkeeda iyo qorshahana waad ka hadashay haddii aan usoo daadegno adiga mudanaha abaqaylaan tahay MCA-ga abaqayl laga soo doorto ka waran deegaanka laga soo doortay waxqabad intee leeg baad samaysay ilaa iyo hadda
maasha allah khayr allah ku siiyo. Aniga horta markii la isoo doortay Abaqayl waxay ka koobneed 9 tuulooyin. Maanta waxay ka kooban tahay 17. Macnaheedu waxa weeyaan ilaa 14 ceel ayaan qodnay. Ilaa 7 iskuul baan diiwaan gelinay. meel qayb caafimaad ah oo marka horeeto dispensaryal ahaan jireen ayaan hadda kor u qaadnay oo waxaan ka dhignay maaragtay health centers level 3 sifo maaragtay looga helo waxa la wixii maaragtay u baahan yihiin dadka. Level 3 hospital waad aragtay taqriin heer sare la geynaya. waxaa la geeyaa muxuu ahay laboratory baa la helayaa, maternity baa la helayaa, nurses joogaan, shaybaar ayaa laga helaa, laboratory shaybaar weeyaan. marka surgery-ga minor surgery waxa la yiraahdo ayaa lagu sameyn karaa. marka dadaal baan sameynay. waa isgaran kartaa ilaa Kenya xorriyada qaadatay Abaqayl Ward inay ka koobneed 9 meelood, maanta ay ka koobantahay 17 meelood. intaana 2 sano gudaheed lagu qabtay. intaas iskuul la dhisay, intaas oo maaragtay dhalinyaro ah ay maanta fursad u helayso inay ka faa'iideysato wardkii levelyo kala duwan. waxyaabaha ku qorsheysan oo sidaada waa qaban doontaa inta hadda iga hartay waa 2 sano, 2 sano iyo xogaa baan soo dhameysanay. waa waqti badan. inta hadda aan ku sheegay hadii aan ku qabanay 2 sano, intaad soo socotana inta ka badan ayaan qaban doonaa. waxa aad ugu muhiimsan waxa weeyaan in meel walba oo tolka ay degan yihiin, dadweynaha ay degan yihiin, in laga helo caafimaad maaragtay muxuu ahaa dispensaries waxa la yiraahdo qayb caafimaad in laga helo. hadda wardka dhan 4 meelood kaliya ayaa qabtaa. sanadka 2 ay qorsheysan, sanadka dambana ilaa 3-4 inaan ku daro ayaan doonayaa insha Allah. waxaan doonayaa in waxa la wixii service ah oo county government ka bixiso in laga heli karo wardka, sida dadka qarinta maaragtay xoolaha oo kaleeto in laga heli karo, nimanka surveyda sameeyaan in laga heli karo. waxa la yiraahdo wardka in la keeno, shaqada county-ga in la keeno ilaa iyo wardka. dhalinyarada horta dhalinyarada runba fiican. hadda 2 meel baan doonaynaa inaan midna ka furno college-ka maaragtay farsamada gacmaha, midna aan ka furno college-ka oo lagu barto horumarinta maaragtay beeraha iyo xoolaha, xanaanada xoolaha in Abaqayl laga furo. labadaaba hadda way inoo qorsheysan yihiin. dhinaca dhalinyarada waa run maaragtay aniga hadda wardkayga waa meesha population-ka ugu badan, una weyn yahay. kuurihii aan kusoo galay anigoona faanaynin wuxuu ka badan yahay kuwa hadda MPyaasha qaarkood ay baarlamaanka ku aadeen ayuu ka badan yahay. dhalinyarada waxaan horta rabi lahaa in ay bartaan xifrad oo maaragtay suuqa looga baahan yahay. taas ayaan maaragtay aad iyo aad ugu dadaalaynaa. aad baad mahadsan tahay. dhegeystayaashana ayaguna fursad baynu siin doonaa, bal ayaguna in ay wax ka weydiiyaan amaba siday u arkaan farsamada gacanta oo la barto muhiimadda ay leedahay. dhegeystayaasha waan siin doonaa fursadda nambarka idaacadda tooska ayay soo beegsan doonaan ayaguna si ay noogala qayb qaataan barnaamijka, waxna nooga weydiiyaan amaba siday u arkaan farsamada gacanta. waan usoo noqon doonaa dhanka dhegeystayaasha, fursaddana waan siin doonaa. mudana sidaan ognahay amaba aan la soconno waxaad tiri waxaan u taaganahay kursiga governornimada Garissa County. doorashada in soo aadan walow weli aanaysan la gaarin, laakiin weli dabeesha siyaasadda waxaa laga dareemayaa nin walba iyo waxa uu markaa u baahan yahay ama uu doonan rabo. kursigan aad leedahay waan doonanayaa, bal ka waran xaaladiisa iyo marka uu kugu dhashay iyo in aad u qalanto. waa su'aal aad iyo aad wanaagsan. horta waxaan u maleynayaa reer Garis aad iyo aad bay yaqaanaan. waxaan ahay maaragtay kasoo shaqeeyay dowladda county-ga. saad la socoto 2010 constitution maalinkii la bedelay ilaa iyo maanta aad iyo aad baan maaragtay ugu dhex jiray arrinta oo county government-ka. 5 sano ugu hore wasiir baan ka noqday, 5 kale la taliye khaas ah noqday oo governaha, 5 kalena waxaan ahay MCA la soo doortay. MCA caadi ah iskama iye, waxaan aaminsanahay inaan ahay hataa maaragtay nin khibradiisa aad u sareyso. haddana aan ahay chairmanka budget committee-ga. waa committee aad iyo aad awood badan u leh iyo saameyn u leh. marka in isku soo celceli waxaan aaminsanahay inaan ahay qofka maanta u qalmo in loo dhiibo muxuu ahaay talada guud ee Garissa County ee gobornimada ah. maxay qofka haddii uu gaari uu ka ahaan jiray tanboy oo maaragtay
darawalkiina uu retire gareeyo haddii qofka ku habboonay in loo dhiiba kaasoo noqonaya maxaa yeelay taaniboygu noqonaya maxaa yeelay aad iyo aad buu u bartay marka aniga countiga sida taaniboygu u garanay gaariga injinkiisa sida maaragtay waxa u baahan yahay yani anigana aad u fahmay midda aan aadka u rabo inaan u muujiyana waxa weeyaan wax la yiraahdo service delivery dadweynaha waxay u baahan yihiin wax qabad wax kale ma rabaan siyaasad isdaba wareegay iyo qayli iyo qallaas iyo buuq iyo waxa ma rabaan waxay rabaan wax qabad dad ninka maaragtay masmaamada iyo maaragtay dadka joogaan dhulka inay dowladda dareemaan taas ayna ku dadaalaya insha Allah ka waran bal dowladda countiga marka governor la dhaho kursi aad u weyn sax ma u aragtaa kursiga asaga in macquul tahay horta wax walba waa tala toleed weeyaane anigana inaad aragtay mooyaane markaan geysanayo applicationkayga horta applicationkayga ugu hore waxaan geystay 2022 laakiin maana soo gaarin heer aan geedka imaado levelkii aan odayaasha ugu keensaday yani ma aragtay la yiray inaad ka tanaasushaa la rabaa marka waana kaga tanaasulay horta nin aad u dhageystaan ahay muxuu ahay tolka haddana waxa aniga aan aaminsanahay waxa weeyaan tolka maanta hadduu isku garto inay gabananimo la aado hajarna la qaato waxaan diyaar u ahay inaan kursiga asaga aan soo dhicin karo oo aan keeni karo wax kastoo igu qaado tabo wallahi dhinaca biyaha dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada hoose waa ECD da wax la yiraahdo carruurta ka soo dhisi lahayd wali waxaan sameyn lahaa wax la yiraahdo integration dugsiga iyo ECD da isku dar lahaa cunuga labada sano ugu horeba dugsiga iyo maartay waxaan isku dari lahaa iskuulka ECD ga la yiraahdo waxaan yareyn lahaa buuqay qaylada ka dhex jirto siyaasiyiinta maxay yeelay dadka ma rabaan hadal badan iyo maartay waxay rabaan hawl badan iyo hadal yar marka shaqada loo baahan yahay in la qabto waxa weeyaan in dadka la siiyo service-ka meesha ugu hoose weeyaan taa ayadana khibradeeda waan leeyahay dadka ila shaqeyn lahaana gabanaha waxa weeyaan waa shakhsi laakiin waa inuu hagaajiyaa dad maaragtay macquul ah oo arrimaha ka shaqeyn kara for example 10 wasiir aad yeelanaysaa wasiirada waa inay ahaadaan dad khibrad u leh arrinta la rabo in la fuliyo kan biyaha hadduu waa inuu yahay nin engineer biyo garanayo meel ka imaatay waxoo dhan hadduu yahay caafimaadka nin daktar oo garanayo caafimaadka siduu yahay ma ahayn nin asiga at least maaragtay u leh khibrad sidii maaragtay dadka lagu gaarsiin lahaa serviceka caafimaadka siyaasadana la yareeyo siyaasadda maxaa weeyaan buuqa iyo qaylida faraha badan in la yareeyo taana waxaa lagu yareyn karaa dadweynaha markii mar walba ay arkaan inaad maaragtay isku taxallujinayso horumarintooda iyo maaragtay danahooda qaylida ay ku wadaana way ka yareynayaan aniga waxaan maaragtay aad iyo aad ugu dadaal hadda world levelka bilaadan aan ahay melihii wax walba maaragtay aan maaragtay hagaajiye melihii laakiin waxaan isku dayay buuqa qaylida ka dhex jirta dadweynaha inaan yareeyo waxqabadkana uu bato marka dadki waxay noqonayaan dad maaragtay waxqabadkii dhinacooda uu socdo waayahay su-aasha ugu dambeyn rabin aan ku weydiiyo waxay tahay baaqa aada u daraysa ugu dambe muxuu yahay hadday ahaan lahayd woorkaaga ama qeyle dadka ku nool oo aan filay inay ku dhageysanayaanba haatanba iyo guud ahaan Garissa County marka ugu hore horta woorkayga dadka ay soo doorteen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qof la soo doorto waa sharaf aad iyo aad u sarreyso maanta magac baan leeyahay magaca ay ka yeeleen lama soo magacaabin waa la soo doortay leen baa la ii galay kuuraa la ii riday meelo bog baa la iga imaaday sad ogsoonta warkayga dadka kuuraha ka ridaa dad meel kale ka imaadeen bay ahaayeen marka horta waxaan leeyahay waa inii mahadcelinaya waxaana rajaynayaa inaan maaragtay ahay kuwiina ku khasaaray oo aad dhahaysaan waan ka faa'iiday maaragtay doorashadii ugu galay kuurihii ay siiyeenna saan hadday kuu sheegay anoo faanayo uu ka badan yahay kuuraha embiyaal qaarkood hadda maanta baarlamaanka joogaan waan ka kuura badanahay marka baaqaan u diraya waxaa weeyaan waa 2 sano iyo bar baan intaa hadda aan sheegay qabtay 2 sano iyo barka soo socotana wixii yaroo ii haray waxaan aaminsanahay wixii badan inaaba dhameeyayba hadda wixii yaroo ii haray inaan dhamaystiri doono insha Allah Garissa County baaqaa u dirayso Garissa County baaqaan u diray waxaa weeyaan number 1 Haajir Maxamed Daahiye waa nin oday ah 57 sano maraya hadda inta tartamayso waxna malaynaa isku da'baan isku dhawnahay waa nin mutacallim ah PhD baan hadda sameynaya waa nin khibrad leh waa nin tol leh waa nin dadka dhageysto waa nin weligii xaqdi qaadin ruma fiican siyaasadda xaqdi bay leedahay
aniga qalbigayga saafi weeyaan waxaan leeyahay talada maanta aniga halii dhiibo insha allahu 5 sano ha lagu fiiriyo 5 kalena dee waxaan kasto ayaa lagu soo celinaya marka waxaan aaminsanahay kii Garissa County ay raadinayeen inaan aniga ahay hal qabsigeygana meel badan waan ka sheegay ana xoolo doon iyo xil doon baan halka waxaan u doonaynaa waxaan rabaa inaan dadka noloshooda wax ka bedelaan doonaa insha Allah.